التفاوت والكلمة الطيبة وإنه قفك استعماله ويان نلشة سعودال أي لذا ما إناد سريبتو وذلك ارتا عقبدا كهوري ما كرو waxaa loo baahan yahay inaad isticmaasho daaqad kaa dambeeyey inaad ka korboodo mahayna inaad isdhiibto ma dunyada waxa u liid waa isdhiibid hadaad isdhiibto dunyada isku keento qofkaa kicinaysa male adiga la iska kicinaysa kasoo qaad camal waxaa dhahday maanta waxaa bararaba waa bara kartaa qofku wax kasta horta wuu qaban kariyaa maskaxdu rabbi ku siiyey waxaa la dhahay haddii maalintii ilaa 24 hours haddii buugle lagu akhrinayo ilaa 60 sano ma buuxsamayso maskaxda waa sidai ku qiyaaseen waa markii in awooddu rabbi ku siiyey aad dhiisho aad dhahdo bas waaye ama aad is dhahdo 30 gaariye bis waa wax ma iisoo haran marka aad loo fiican yahay adigoo awoodii haysid oo haddana dhahdo wax ma qaban karo bal adiga shakhsi ahaantaada isku fiiro waxaa macquul ah marka waxay dhahan biicada qofka caajis gelinayso inaad guurtida fiican la saaxiib qof ka horbood badan fudud caajis iyo waxaas aqoonin duulo maayna dad fadhiya dad la fadhisi adiguna waa la fadhiisanayla walidaalika marka waxaan u baahannahay marka koowaad horta niyad fiican oo saafiya qofka muslimka taas horta kama maarmo ikhlaas niya waxaan inay ka yihiin ilaahay dartiis maadee oo kahor imaad iyo rabbi awoor imaanaysid ma sugmaan laakiin qofka hadday ka tahay rabbi dartiisa waxaa la hubaa in oo qofkaas ku guuleysanaa waxuu qabsanaa waxaad u baahan tahay inaad naftaada garatid oo dareentid jooji cabashada number 1 waxaad dilo qofka waa cabashada ma qaban karo ma sameyn karo inta kama dhici karo wax aad iyo aad u liito waa inaad joojisaa taada kale dib u dhigista howlaha dib u dhigista waa inaad hore u socoto jooji dib u socoshada مثلا hadii lagu dhaho halkaas 4 saac istaagsanaaw way adagtaa oo gacmaha ku xanuunaya lafaha xibnaha dhan waa daali ma la sameyn karo soma laakiin maanta hadii la dhaho maanta wadada ninkii taagnaado 4 saac wuxuu leeyahay $10,000 waxaa markaas waxaa sameynaya inaad isdhijiso oo isla markaas dhaadaniyo waa daashay 10,000 ku soo ureysa dana isla markii waa taagnaani ama lafa ku jabto ama inta ku xanuunto waa taagnaani leebis dan waa laga yaabaa waa qofka markii wax baro isdoo cawaaqil dhibaatooyin imaanayso laakiin ma ayno wax ku soo dhadhamay waa inay jiraan horto wax ku dhiirigelinayo ku riixayo waa inay jiraan marka mu'anthar ka weyn miyaa jiro jannatu arduha ka'ardi as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin haday ku muuqato janno cirki illa dhulka balceedu yahay waa inaad 24 meel kasta ka dhacdo loo waa inaad isdhoojisaa waayo baashana ku muuqato 10,000 wax ka weyn ku muuqato waa inaad marka dareensan tahay inaa baasha siilisid jannadaas inaad helayso isku day inaad xifdiso quraanka way adagtaa la leeyahay kama hadlay kaliya luqadda in lagu luqeeyo waxaa ka hadlaya wuxuu sheegaa in la fahmo quraanka qof hadda waxaad arkaysaa yaqaano intaasoo kutub way makaa maskax weyn yahay may dadaal la isdhiirtiin marka qofka hadduu dadaalo marka waxaan leenahay qof kasto wax wuu xifdin karaa da' kartaa joog dhalinyaro walaa weyn
meeshaad joog. ninkaas 54 jirka ah ayaa waxaa la dhahay wuxuu noqday shiiqul azr. idan caqliga oo rabbi ku siiyey waad haysataa. waxaad kalood u baahan tahay waxaa waaye waqti inaad ka faa'iidaysato. waxay dhahaan hajmatul waqti, waa inaad adiga weerar ku aataa waqti, maaha inuu asiga weerar kugu ahaa, oona kaa dayacmin aad ilaaliso. Asalaamu calaykum.